safiirka jamhuuriyadda Somaliland u fadhiya waddankani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo weerinayo Cali Xaaji Maxamuud oo loo yaqaan Cali Baashi oo ah siyaasi weyn oo rugcadaay ah kana soo jeeda gobolka uu dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu u magacaabay gobolnimada ee Xaysimo dhawaana ka yimi magaalada Taleex ayaa si buuxda uga warbixiyay xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta gobolkaasi Xaysimo tan iyo intii ay gaadheen ciidamada jamhuuriyadda Somaliland deegaankaasi safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Kenya Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Sifir oo wehelinaya Cali Baashi ayaa si cad ugu qeexay hudheelka uu ka degan yahay magaalada Nairobi maray shir saxaafadeed ku qabteen xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaamadaasi iyo sidii ay beesha caalamka uga dhaadhiciyeen fikraddii ay markii hore ka qabeen gobolkaasi Xaysimo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan haddaan bilaabo beesha caalamku warqad bay soo saartay mar ay dareen ka muujinaysay iyo warwar ciidamadeen Somaliland oo tagay Taleex oo hawl nabadeed u tagay oo ay si khalada u fahmeen markii ay markii taasu dhacday anigu waan la xiriiray anoo og dareenkooda deetana waan la kulmay deetana aragtidoodii iyo dareenkoodii bay tuseen iyo siday uga warwarsan yihiin dhibaato halkaa ka dhacda deetana waa u sheegay xaaladda Somaliland ujeedadeedu sida ahayd waana ballan qaaday inaan warka geeyo dawladda warka u geeyo deetana Hargeysaan qabtay dawladdii baan uga warramay wixii laygula hadlay deeto markaan soo noqonay deetana ergaal laygu soo daray wasiirka khaarijiga hogaaminayo iyo wafdi culus oo xogogaala oo aad uga warhaya markaan halkan nimi waxaanu la kulanay European Unionka midowga Yurub ambassadoroodii oo dhan iyo wakiiladoodii baanu la kulanay oo aanu iska warsanay waxa Taleex ka socda waxa dhacay halkay marayso waxa ku socda nasiib wanaag markii la tagay ciidanka Somaliland tagay Taleex wax dhibaato oo ka dhacay ma jirto meesha ujeedada kaliya lahaa niman doonayay inay shir ku qabtaan oo colaad ku uriyaan loo arkayay yaa laga hortagayay tiina dabata ciidanku lama bay sugin ciidankii bidhaantiisa markaa ka baxeen shirkiina halkaas ku qabsoon waxaan jecelahay markaa waxa dhabtiga ka jira deegaanka inaan dadweynaha Soomaaliyeedna u sheego dadweynaha reer Somalilandna u sheego dadweynaha beesha halka ka soo jeedana aan u sheego sidii xaaladdu tahay dhabtii wax badan oo jira oo aan la ogeyn ayaa jira wax badan oo aan jirin oo dadka loo sheegay ayaa jira deegaankaasi deegaan dib u dhacay weeye waa deegaan ay saareyd calaamad isku tallaaba oo ah nabad maaha waa deegaan waxa Soomaalidu heshay wax weyn baan ahayn oo run ahaantii waxay hay'aduhu bixiyaan leeyahay hay'aduhu ma tagi karaan Puntland kama tagi kareen Somaliland kama tagi kareen meel la isku haysta bay ahayd bay oran jireen calaamad baa saareyd maanta deegaankaasi guud ahaan wuxuu ka tirsan yahay Somaliland maamulkiina waa wada gaari ana idin sheegayo ka imid oo la socday wafdigii tagay Taleex baa ugu dambeysay dantu waxay ku jirtaa in meel la isugu luguduudo dadkana horumar iyo nabad loogu baaqo oo loo raadiyo looma baahna in dib loogu celiyo meeshii 1990kii Soomaali maris looma baahna meeshaasoo sida iska ahayd markii hore dib u hadhay ayaa niman odayaal ah oo khiyaara oo magac leh oo beeshu dadkii ugu horeysay ay wax baratay oo wax badan laga filiyay oo jagooyin waaweyn oo siyaasadeed soo qabtay oo soconaya Taleex markay tageen waa la isugu tagnay anigu raggii ugu tagay baan kamid ahaa nimankaasi hawl adag oo aanay ka fiirsan ayay galeen oo urur siyaasadeed oo hadda hor leh yaanu sameeynaa ilaahay mahadee ka gaadhay ciidamada Somaliland iyo xukuumadda Somaliland yaa dhibaato weyn oo culus oo ku soo wajahnayd Taleex ka badbaadisay waan uga mahadcelinaynaa run ahaantii Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nairobi.